darsan kartaa kuwo kale. haddii aad aragtid applicationada dhan inaad heshid aragtid waxaa leedahay halkaas ayaad ku dhufanaysaa all appska ayaad ku dhufanaysaa wixii application oo dhan halkaan ay ku jiraan. marka iyo meesha uu ka ahaa power buttonka meeshuu bidix ka ahaa hadda waxaa lasoo dhigay midigta ayaa lasoo dhigay power buttonka. almuhiim marka waxaan rabnaa inaan barano sida dhexda inta looga qaado loo geyn karo bidixda. way fududahay marka meeshan oo taskbarka ayaa right click leedahay kadib waxaa ku dhufanaysaa taskbar setting ayaa ku dhufanaysaa. settingka markuu kuu soo kaco kadib ayaad waxaad ka dooranaysaa halkan ayaad dooranaysaa center waaye hadda meesha hadda uu noo joogo. السلام عليكم دمان أصحابتا شرفت لي وإن سلامي. maanta waxaan idin wadaa Windows 11 amba Windows 11 oo soo baxay 24kii bishii 6aad. haddaba Windows 11 ama Windows 11 muxuu ugu duwan yahay Windows-yadii ka horreeyay sida Windows 10, Windows 7 iyo Windows 8, Windows 8.1 muxuu ugu gedisan yahay waxyaalaha waxaa ku cusub kow horta iconskii oo kulli waxaa la keenay dhexda la keenay halkii aan uga baranay inay bidix kasoo bilowdaan sida start menuga search boxka. waxaa kaloo ku cusub task view iyo widgetka ayaa ku cusub. task viewga markaa ku dhufatid oo kale waxaad helaysaa desktop 1 iyo intaa rabtaa ku darsan kartaa desktop 2, desktop 3 intaa rabtaa ku darsan kartaa. waa task view oo ku cusub yahay. Windows 11 Windows 10 wuu lahaa laakiin sidaan oo kale ma ahayn. widgetka isagana waxaa ka helaysaa akhbaaraadka caalamka news international newska sida ciyaaraha weatherka. marka waxaa kaloo halkan yaalo Microsoft Edge waa start menuga kale markaa ku dhufatid oo kale halkan wuxuu kuu soo bandhigaa wixii application kuu soo bandhigaya oo pinet ku ahaa oo lagu biin gareeyay. halkan wuxuu kusoo dhigayaa applicationadii marka ugu dambeysay ay isticmaashay ayuu kuu soo dhigayaa recommended. haddii aragtid waa ku darsan kartaa kuwo kale. haddii aragtid applicationada dhan inaad heshid aragtid waxaa leedahay halkaas ayaad ku dhufanaysaa all appska ayaad ku dhufanaysaa wixii application oo dhan halkaan ay ku jiraan. marka iyo meesha uu ka ahaa power buttonka meeshuu bidix ka ahaa hadda waxaa lasoo dhigay midigta ayaa lasoo dhigay power buttonka. almuhiim marka waxaan rabnaa inaan barano sida dhexda inta looga qaado loo geyn karo bidixda. way fududahay marka meeshan oo taskbarka ayaa right click leedahay kadib waxaa ku dhufanaysaa taskbar setting ayaa ku dhufanaysaa. settingka markuu kuu soo kaco kadib ayaad waxaad ka dooranaysaa halkan ayaad dooranaysaa center waaye hadda meesha hadda uu noo joogo oo defaultgiisa waa center. halkaas ayaad ku dhufanaysaa kadib waxaad leedahay left ayaad leedahay waa kaasaa left ayuu noo noqday. haddii aad rabto dhexda inaad keensatidna waa center aad dooranaysaa. marka waa center iyo left labadaas ayaa noo yaalo oo keliya right ma jiro waa center iyo left keliya. okay kaasi waa intaas. markii aad ku dhufatid start menuga waxaa soo baxayo qaabkan uu soo kacaya. marka haddii aad rabtid in aad heshid qaabkii Windows 11ka Windows 10ka start menugiisa kale daarabtid oo ina qaabkaas oo kale inuu kugu soo kaco daarabtid waxaa maraysaa dariiqan ayaa maraysaa ran markaa soo kacaysa kadib waxaa ku qoraysaa reg edit waa register editor ayaad ku dhufanaysaa. okay aad leedahay user account controlka yes aad leedahay. markaan soo kicino kadib kan labaad ayaa dooranaysaa oo HK current user kaas ayaa dooranaysaa
halkaas ayaa furaysa expand ayaad ku sameynaysaa. kaas markaa furto kadib waxaad leedahay software ayaad expand ku sameynaysaa. kadib Microsoft ayaad expand ku sameynaysaa. kadib hoos ayaad aadaysaa. kadib Windows ayaad expand ku sameynaysaa. kadib current version ayaad expand ku sameynaysaa. kadib waxaad raadinaysaa Explorer eedii aaway waa kan Explorer ayaa expand ku sameynaysaa. kadib waxaad tegaysaa folderka advanced ayaad tegaysaa. advanced aad ku dhufanaysaa. markuu sidaas usoo kaco kadib halkan waxaad leedahay right click aad leedahay new dword 32-bit value ayaad ku dhufanaysaa. dword 32-bit value ayaad ku dhufanaysaa. markaa ku dhufato kadib halkana waxaad ku qoraysaa marka start oo sta capital ah start underscore aad leedahay. hoosna waa idinkugu soo qori doonaa iyadoo qoraal ah. kadib waxaad leedahay show oo sta capital ah show classic oo sida capital ah mode oo mta capital ah. kadib enter aad leedahay. right click aad leedahay. modify aad leedahay ama double click aad leedahay. waa isku meeshi. hadda meeshan hadda wuxuu ku base gareysan yahay 0 ayuu ku base gareysan yahay. waxaa ka dhigaysaa 1 ayaad ka dhigaysaa. kadib okay aad leedahay. kana waa iska xiraysaa. kadib waxaad leedahay restart ayaad leedahay. restart ayaad diraysaa. markuu soo kacay kadib waa inuu isbedelaa. restart ayaan ku dhufanaynaa hadda waa kana wuu soo kacay. waxaad leedahay marka start menugi ayaad ku dhufanaysaa. waa kana waxaa ku soo kacay start menugi lagu yaqaanay Windows 10 ayaa ku soo kacay. halka kan E11 oo ka ahaa power button-ka halkan midigta uu ka jiray waa kana hadda start menugi oo waxa ku soo kacay oo Windows 10 ayaa ku soo kacay. okay marka waa kana qaabkaas ayaa loo sameeyaa start menuga Windows 10 qaabkaas ayaa loogu noqdaa. haddii aad rabtid inaad ka naqatid oo kiisa horeeta aad kusoo laabatid aad rabtid right click run ayaad dhihi kartaa. kadib waxaad tegaysaa marka wadadii meesha horeeta ayaad tegaysaa. positionka horeeta ayaad tegaysaa. reg edit ayaad tegaysaa. okay leedahay. user accountiga yes aad leedahay. kadib wuu kusoo kacayaa. waa kan halkii horeeta ayaad tegaysaa. halkii horeeta markaad tagtid waxaad raadinaysaa meesha raadinaysaa waatana start underscore show classic mode double click aad leedahay. meesha hadda hal uu ku base gareysan yahay 0 ayaa ka dhigaysaa. 0 markaa ka dhigtid kadib waa iska xiraysaa. kadib restart aad leedahay. waxaa ku soo laabanayo Windows 11 start menugiisa ayaa ku soo laabanaya. okay waa kana marka uu soo kacay. hadda marka wuxuu noo joogiyaa wuxuu ku base gareysan yahay start menugi oo Windows 11 ayuu hadda saan aan ku haysanaa. marka way fududahay marka aad ku laabanaysid oo start menuga aad ka dhiganaysid Windows 10 markaa ka dhiganaysidna hadba waxaa maraysaa dariiqa ayaad maraysaa. walaal waad nagu biirin kartaa wixii talo ah iyo tusaale ah. waana soo dhaweyneynaa hadduu alla idmo. wixii su'aala ee ku saabsan mowduucan waadna weydiin kartaa. waxaan isku dayi doonaa inaan uga jawaabno sida ugu dhaqsiyaha badan su'aalihiina. waad ku mahadsan. haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan subscribe-ta ku dhufo gambaleelkana furo lana wadaag asxaabtaada. waa ku mahadsantahay daawashadaada. mahadsanid.